sharciga wuxuu maaragtay u ogol yahay in uu maaragtay ninka ku guuldaraystay Raila Odinga waxa u bannaan inuu taga maxkamadda sare ee maaragtay la yiraahdo Supreme Court-ka muddo 7 beri gudahood. 7daas berina waxay ku eg tahay maaragtay isniinta soo socota 8 saac maanta ilaa isniinta soo socota 8 saac inuu maaragtay dacwadiisa maxkamadda sare geeyay. intaas fursadaas wadadaas ayaa u furan. haddiiba ay dhacdo inuu maxkamadda geysto dacwadiisa maxkamadda sare imise maalmood inay ku gebagabayso oo ay go'aan ku soo saarto ayuu sharcigu dhigayaa. maalinka warqadahaas maaragtay maxkamadda la geeya ee laga diiwaangeliya maaragtay dacwada Raila Odinga maxkamadda waxay dastuurka uu siinayaa fursad muddo 14 beri gudahood inay maaragtay dacwadii ay ku dhageystaan ayna go'aan ka gaaraan muddo 14 beri gudaheed. waxaa jirtay markii natiijada lagu dhawaaqayay in guddigii doorashada 4 ka mid ah ay yidhaahdeen natiijada lagu dhawaaqay annagu ma ogolin. arrintaasi ma laga yaabaa haddiiba uu Raila maxkamadda u gudbiyo dacwad in ay culays u yeesho dacwadiisa? wallahi kulley hadda saas isku haleynaya kulley asaga hadda dacwada saa ogahay aniga qareen ahaan haddaan u hadla dacwadiisa hadda Raila haddii uu taga maxkamadda sare dacwadiisa say ay noqon doonto kulley hadda waan garan karnaa. wuxuu cuskan doonaa oo maaragtay awood badan u yeeli doonta dacwadiisa sidoo asaga filaaya. maaragtay guddiga 4 nin ee maaragtay guddiga ka baxday shalay ay yiraahdeen maaragtay lagu dhawaaqaya shalay lagu dhawaaqay maaragtay inayna waxba shaqo ay ku lahayn. laakiin si sharciga la og yahay maaragtay nimankaas maaragtay 4 nin ee guddiga ka mid ka ahaa shaqo kuma lahan ku dhawaaqida lagu dhawaaqay maaragtay madaxweynaha lagu dhawaaqaya. taas waxaa sharciga ama dastuurku uu xaq u siiyey ama maaragtay loogu talagalay inuu sameeyo maaragtay ninka guddiga u weyn ee maaragtay la yiraahdo Chebukati. marka kulley Raila xaqiisa ama maaragtay qareemadiisa iyo maaragtay wuxuu is leeyahay taas cuska. haddii sida ay sheegayaan dadkii korjoogayaasha ahaa ee la socday sidii ay doorashadu u socday ay ku tilmaamayaan in ay si fiican oo madax bannaan u dhacday taa lafteedu difaaca Ruto ninka ku guulaystay doorashadan isaga laftiisa difaaciisa uu maxkamadda la hortagayo culays ma u yeelaysaa ma laga yaabaa inuu garta ku helo? si fiican aad difaac weyn u yeelaysaa maadaama wixii doorashadii iyo saad ogtahay maxkamadda sare 2017 maaragtay aad ugu dhawaaqeen yiraahdeen maaragtay guddiga doorashada shaqo kuma laha in wax yar kama bedeli karaan kama bedeli karaan shaqalna kuma dari karaan dacwada maaragtay ama go'aanka ay soo gaaraan dadka wax dooranaya go'aankaas oo lagu dhawaaqa maaragtay goobta maaragtay wax lagu codeynay ay yiraahdaan polling stationka oo maaragtay formka la yiraahdo 34A lagu soo diray oo haddana maaragtay ku jira khadka maaragtay IBC ku jira. marka maaragtay difaaca Ruto haddii ay case maaragtay Raila uu go'aan ku gaarin inuu maxkamadda taga aad bay ugu fududaanaysaa waayo warbaahin badan oo maaragtay ama local wadanka iyo kuwa internationalka ayaa maaragtay xisaab badan ka soo jeediyay. BBC saa ogtahay idinka naftigiina BBC da maaragtay Englishka qolada la yiraahdo maaragtay Al Jazeera nafteeda way soo saareen kulligoodna waxay saadaalinayeen in uu Ruto ku guuleysanayo xisaabtii khadka lagu soo diray IBC ku soo dirtay markii laga fiiriyo. marka Ruto difaac weyn uu haystaa kulley haddiina wax kale ayna dhicin waxay u eg tahay Raila hadduu ku adkaysto inuu maxkamad taga maxkamadda sare inay maaragtay xaqiijin doonto ay maaragtay ku cadeyn doonto in Ruto oo si sax lagu doorto.